السلام عليكم غير شرفت لكم soo dhawaada kulli TV halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 10 calaamad oo lagu garto qofka ka helay ama ku jecel ee ka xishoonayo hadii aad wiil tahay ama gabar tahay calaamada koowaad wuu ku soo fiirinayaa marka aad fiirisana dhinaca kale ayuu fiirinayaa wuuna ismashquulinayaa asagoo iska dhigaya qof meel kale fiirinayay calaamada labaad wuxuu xasuustaa xitaa waxyaabaha aan micnaha lahayn ee aad u sheegtay waxaad u sheegtaa waxyaabo badan oo ku quseeyo waqti badan kadibna weydii uu ku sheegi doonaa dhamaantood ama inta badan calaamada saddexaad kuma dhaho walaal ama saaxiib magacaaga oo saxan ayuu kuugu yeeraa haddii aad aragto qof markasta ku leh walaal ama saaxiibkaasi kaama helin kuma lihi qofkaas ka tag balse qofka adiga ka halay wuxuu adeegsadaa erayo ka duwan walaal iyo saaxiib calaamada afraad wuxuu isku dayaa inuu ka qosliyo mar walba qofku uu jecel yahay qofka ka qosliyo oo u shactiray sidaas la ajligeed asaguna wuxuu jecel yahay inuu ka qosliyo qof walba in laga qosliyo oo loo shactiray uu jecel yahay asaguna wuxuu jecel yahay inuu mar walba ka qosliyo kana farxiyo si uu dareenkaaga u soo jiito calaamada shanaad qofka ka halay wuxuu ku siiyaa waqti ka badan inta uu siiyo dadka ay yaqaanaan xitaa hadduu leeyahay saaxiibo badan adiga ayaa ah qofka uu waqti badan la sheekaysto lana dhafro waqti badanna la qaato calaamada lixaad dadka kale arrimahooda kaagama sheekeeyo marka aad wada sheekaysanaysaan kama maqlaysid hebel iyo heblaayo inta badan waxyaabo kale ayuu kaaga sheekeeyaa oo idin quseeya calaamada toddobaad qofkan uu ku amaano wuxuu ku sheegay inaad qurux badan tahay oo qalbi wanaagsan tahay laakiin kama hadlo jirkaaga kumana dhaho waad shidan tahay iyo wixii la mid ah qofkan taas beddelkeeda wuxuu isticmaalaa erayo asluub leh sida waad qurux badan tahay iyo wixii la mid ah calaamada sideedaad wuu ku dhibaa oo kula kaftama qofku jecel ayaa kula kaftama qofka aan ku rabin waqtigiisa kuma siiyo kaftan iska badaaye calaamada sagaalaad su'aalihiisa ayaa ka badan su'aalahaaga haddii qofku ku jecel yahay su'aalo badan ayuu kaa weydiinayaa waxyaabo badan oo noloshaada ku saabsan balse qofka aan ku rabin waxba kaama weydiinayo noloshaada calaamada tobnaad wuu kula soo hadlaa badanaa ugu yaraan maalintii hal mar waad arkin wicitaankiisa ama fariintiisa sidoo kale mararka qaar sabab la'aan ayuu kula soo hadlaa asagoo kula waan ku salaamayay iyo waan kuu soo xiisay iyo waxyaabo la mid ah غير شرفت له هدي أد مقال كان كشن سيشر جرايا فيديو جنا لايك سارة channel كان سبسكرايب لأسياد ولا سعتان مقالات دنبه يعني صوّد وأنا مع سنتين وبالله توفيق.